kulanti habboon daawadayaal idin ahaantiinba kusoo dhawaada barnaamijkeena alool media t v aad kala socotaan jimcaha iyo su-aalaha. barnaamijkani waa midkii aad idinkoo isticmaalaya khadka whatsappka ama lineka aad kaga qayb qaadan jirteen idinkoo hadba soo bandhigaya wixii markaa aragtidiinu ay tahay. hadda haddaynu khadka telefoonka aynu furno daawada kusoo dhawow alool t v. daawade السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام جمعة مبارك daawade magacaaga iyo halkan naga soo wacaysid. waa Zainab Cabdi oo idinka soo wacaysa Burco. Zainab Cabdi kusoo dhawow alool t v. maxaad kaga qayb qaadanaysaa barnaamijka? waxaan kaga qayb qaadanayaa maalintii dhaweyd madaxweynuhu waa kii ay halkaa ka shirayeen marka maxay ahayd qodobadii ka soo baxay iyadoo aan la ogaanin ayaa loo dabaaldegay. marka maxay tahay dabaaldegii markii haddana waxaa kasoo daba baxay qodob oo isdhexgal laleeyahay dad baa isdhexgelaya shacab baa isdhexgelaya. Zainab adigu isdhexgalka maxay tahay adigu isdhexgalka sidee baad u aragtaa? anigu waxaan u arkaa khalad baan u arkaa isdhexgalka waayo madaxweynuhu dadku way kacsan yihiin madaxweynuhu inuu ka jawaabo isdhexgalkaas ayaa la rabaa. teeda kaleeto heestii ahayd maxay ahayd dhagaha ugu riday inaanay dhacay taas iyada maxaa laga yeelayaa? maxaa dhagaha ugu rida inaanay dhacin maxaa laga yeelayaa? maxaa laga yeelayaa heesta ila waa isdhexgalkii wax kalena waa soo socdaa marka haddii la isdhexgaleen. daawada bal aynu heestaasna abwaanadaynu u deenaynaa madaxweynaha iyo siyaasiyiintana waynu ka war sugaynaa haddii alla ka dhigo. aad iyo aad baad u mahadsan tahay Zainab ka qaybsigaaga. su-aal cajaayiba ayaa daawadahaasi uu inoo soo aynala wadaagtay Zainab oo ah heestii ahayd midnimo dhimatay kusii dhegan yina dhagaha ugu rida inaanay dhacayn ayay su-aal ka keentay kuleeda. hadda maxaa laga yeelaya heestaas? wiciiba waa tanoo malaawaaba isbedelayne waa aragtideeda. markaa taas waxay ka turjumaysaa malaha ruuxanka iyo khilaafaadka kasoo dhalanaya ama kasoo badanaya shirkii Jabuuti ee wada hadalada Soomaaliya iyo Somaliland. taas haddaynu intaa ku dhaafno inaga oo sii wadanayna barnaamijkeena jimcaha. السلام عليكم. عليكم السلام daawade magacaaga iyo halkaad naga soo wacaysid. magacaygu waxa weeye Cabdiqaadir Axmed Farax. Cabdiqaadir Axmed Farax halkaad naga soo wacaysaa? halkaad naga soo wacaysaa? waxaan ka soo wacayaa magaalada Boorame kusoo dhawow. maxaad barnaamijka kaga qayb qaadanaysaa? su'aal baan ku weydiinayaa su'aal saa weyn maaha. waan gartay. waxaan ku weydiinayaa barnaamijkan aad weydiinayna waxaa kugu dhaliyey adiga asxaabtaada mise adiga fikirkaaga ka dhalatay? barnaamijkan wuxuu ka dhashay ilaa mar aanu dhowr qof aanu ahayn oo halwadeenada alool t v oo aanu rabnay inaanu u samayno barnaamij dadkaan usoo bandhigno. marka barnaamijyadii markaa soo baxay ee fikradihii la isweydaarsanayey ayuu ka mid ahaa. marka barnaamijyo kalena way jiraan qaar kalena waa jiraan oo soo socda iyo qaar aanu hore usoo bandhignayba sida bulshada iyo hadalhaynta bulshada iyo social mediaha milicsiga haldoorka kan jimcaha iyo su-aalaha. qaar kalena way jiraan oo iyaguna soo socda. صح. adigu ma isku fiican tihiin dhanka barnaamijyada iyo tviyada? waa isku wacannahay weliba dhanka website-ka aloolkiinan hadda badanaa aad baan ugu xidhanahay. hore u socdaan idin leeyahay hore u socda. aad iyo aad baanu kaaga mahad celinaynaa ku xidhnaanshahaaga daawade iyo akhristaba. aye way salaamaya khayr bay idin rajeynaya.
waanu kaa qaadnay daawadaheena boorame inaga soo wacay oo ah macmiil ku xidhan dhan walba warbaahinta alool media aad iyo aad baanu daawashadiisa iyo ku xidhnaanshihiisaba aan uga mahad celinaynaa daawade kusoo dhawo alool t v asalaamu calaykum calaykum salaam daawade magacaaga iyo halkaad naga soo wacaysid walaa casho farax la dhahay kala soo hadlaysa muqdisho caasha oo muqdisho joogta kusoo dhawo alool t v maxaad barnaamijkeena jimcaha iyo su-aalaha kaga qayb qaadanaysaa aad baan u mahadsan tahay walaal su-aal baan ku weydiinayaa midnimo miyaa laga maarmayaa midnimo miyaa laga maarmayaa waayo anaguna jecelnay walaalahayna Soomaaliya inaynu fadnaan hal mid ahaano inaynu hal mid ahaano miyay ay ku khasban tahay inaynu hal calan wadaagno waayo Djibouti walaalaheen maaha maadaama aynagu Soomaali nahay haa kule eeg Djibouti soo walaalaheen maaha kuwa Ethiopia soo walaalaheen maaha miyaynu isku calan nahay markaa walaalnimadu way ka sarreysaa way ka qaalisan tahay calankan iyo xuduudahan iyo waxaan la sheegayo soo maaha in badan markaa in haddiibay ay noqotoba in la kala guuro dadku kala go'i maayaane calankan iyo waxan unbaa guuraya laakiin dadku walaalay ahaanayaan waa run taas laakiin waxay ku xidhan tahay Soomaalidu waa dad yar oo kooban marka inay kala faraaq sameeyaan oo ay midba dhinac u goomo qurux badna in la isu gooy hal mid noqdaan baa aad bay u wanaagsan tahay qurux badan ka waran haddii aynu ka waran dadku haddii ay cadownimo isu sii qaadaan oo isii jiijiitaan oo xamaasad xaasid kala dhex dhigo oo dabeetana walaalnimadu halkaa ay ku sii luntaba inshallah taas anagu ma rabno inay miyaanay ka habbooneen caashay miyaanay ka habbooneen in aynu dad walaalo ah oo gamcaha isqabsada oo isku dad iyo diin iyo ah hadda waxaynu aragnaa isu taga cimaaraadka carabtu waa 7 wadan buu ka kooban yahay soo ogeey marka khasab ma aha inaynu isku alan yeelano waa sax laakiin taas adiga kale hadalkaaga inaad dhan badan tahay baan ka dhadhansanayaa laakiin se Soomaalidu waa mid inay isku calan noqotana aad Soomaalidu inay isku mid tahay la isku ma hayo laakiin waxa laga hadlayaa walaalo in dadku si ay u wada dhaqmi lahaayeen loo sameeyo taasina walaalnimadu khasab ma aha inaynu isku calan noqono may hadii la midaysmo dhaqankuna waa halkiisa oo diin baa isku keenayda marka walaaltinimadeena dhaqankeena way soo waafaqayaan mar walba bal Djibouti ka waran Djibouti oo kala wadan gaar ah ayaynu walaalanahay Soomaa saasuu Djibouti oo kale baynu ahaanayna wax inaga xumaanaya ma jirto meel la aadi meeyno sax weey walaal adigu Djibouti xaggan Soomaaliland bad soo jeedaa Soomaha reer waqooyi baa tahay walaalo aniga Soomaalida la sheegayaaba waa aniga marka aynu wada duwowno aynu walaalo ahaan oo aynu gamca isqabsano aynu hore u socono khasab miyama intaas oo dhan waxa lagu xirayaa hal calan muhiim ah calankii hore waynu bedelay qaar kale la bedelayaa laakiin walaalnimada muhiima iyo in hore loo wada socdo halka calan baa lagu xirayaa walaal asma jiraan halka calan baa lagu xirayaa halka calan hadii lagu midaysay aad ayaanu kaaga mahad celinaynaa fikirkaaga iyo ka soo qaybgalkaaga Alool TV dabcan dadku way kala afkaar iyo aragti duwan yihiin laakiin mar walba waxa muhiim ah in dadku ay walaalo ahaadaan hadalkana istiqsiiyaan oo ay isqanciyaan laakiin in xamaasad iyo dadka oo walaalo ah la kala dilo ama colaad la kala dhex dhigo ma fiicna dadkuna in ay gamcaha is haystaan walaalnimadu way ka muhiimsantahay aynu hal calan lahaano waayo sidan hadda tusaaleeyayba Soomaalidu haddaba hal calan maaha laakiin waa walaalo
waa hagaag intaa kaasna aynu kaga soo gudubno aynu u gudubno halo halow daawada kusoo dhawow awal t v waan dhawahay walaalo aad baan kuu salaamay waan kaa qaaday daawade maxaad ka qayb qaadanaysaa barnaamijka magacaaga iyo halkaad joogta adoo ku bilaabaya walaalo waxaan joogaa hargeysa ayaan kaala soo hadlayaa magacaygu waa yurub siciid waxaan doonayay inaan ku weydiiyo tole waxaan aada u jecelahay in aan miiryaha kasoo muuqdo oo aan ama barnaamijyada diyaariyo ama aan wararka soo daayo waan gartay marka haddaynu soomaalida dhexdeedana bal dadku inta badan waxay dhahaan hablaha miiryaha kasoo muuqda hablo dee adigu wanaagsan maaha waxbaa loo tiriyaa waan gartay bal maxay kula tahay adiga walaal siciidow aniga aragtidayda haddaan kaa dhiibto horta qayb badownimo ah ayaa inagu jirta qaybta badownimada waxay odhanaysaa inantu hadday kadinka dhaafto way fogaatay waa run laakiin hadda muddooyinkan dambe alla wuxuu inagu mahadiyey hablo shafran oo muuqda oo warbaahinta ka dhex muuqda marka hablahaas kudayashay mudan yihiin dabcan iyaguba waxaan way la kulmeen dad badan sidan filayo dad badan iyo maaragtay aragti adag oo badan oo hor istaagaya way la kulmeen laakiin muhiimaddu waxa weeye haddaad adigu aad u dadaashid waxaad jeceshahay insha allah waad gaadhaysaa guushaada laakiin dadka ha dhegaysanayn dadku waa alqalad buuxda hablaheena warbaahinta guusha ka gaadhay ee hadda warbaahinta inamadaba la odhan karo waabay u dhigmaan ama waabay ka cadcad yihiin sida saga beeldeeq oo kale way jiraan waa hablo badan baa jiro oo warbaahinta horumarka gaadhay haddii hamigaa uu saa yahayna waad ka gaadhi kartaa laakiin waxaad u baahan tahay inaad u dhabar adeegtid una dulqaadatid waktiga iyo dadkaba aad baad u mahadsantahay walaalo aad baan kuu salaamaya aada iyo aad baan kaaga mahad celinaya kasoo qayb galkaaga daawada waa hagaag barnaamijkeeni maanta inagoo koolkaa u dambeeya ku soo eegayna xaqiiqdii qodobkaas ayay inantaasi taabatay waxa weeye wax jira qayb badownimo ah ayaa inagu badan oo ah haddii inantu kadinka gaadho way fogaatay marka insha allah hablahana qayb bay ka yihiin guusha nolosha amaba inta badanba hadda muddooyinkan dambe marka iyagana ha la garab galo wixii saxana ha lagu taageero waa hagaag kulanka xiga inta aynu ku kulmi doono dhammaantiinba waxaanu idinkaga tegaynaa ammaano allah